kulanti wanaagsan oo waxaan daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka sirdoonka caalamka oo toddobaad walba xilligan oo kale aad halkan ka daawataan Brit Somali TV waqtigiina waa idinkaga mahad celinaynaa toddobaadkan sheekada ku saabsan sirdoonka caalamka ayaa xiise gaara leh maxaa yeelay dhibaatooyin fara badan ayaa la isu geysanayaa si sir wadan loo helo wadan kalena sirtiisa loo fashilo dumar ayaa la adeegsanayaa soomaalidu waxay tidhaahdaa sir dumar lagama sal gaaro xilli aadan filanaynin ee bahal sabaaxadaho bariiska ku tidhaahdaa markaasuu waagu kuu baryaa haddaba sheekada aanu ku bilownaya daawadayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan sargaal sare oo ka tirsanaa KGB USSR ama Sovietkii Soviet Unionkii ayaa waxaa loo soo dirayaa dalka Canada halkaas ayuu wuxuu kusoo gelayaa sharci la'aan maxaa yeelay haddii uu kusoo galo sharcigiisa saxda ah waa la daba dhiganayaa waa la waardiynayaa sirdoonka Canada ka warqabaya saaxiibada Mareykanka u sheegayaan si aan loo ogaanin sharci darro ayuu dalka Canada kusoo gelayaa halkaas ayuu muddo joogayaa si uu sheekada u xuraabiyo haddaba asagoo halkaas sheekadu ay u marayso mission culusna loo soo diray oo lagu yiri militariga Canada sirtooda soo xuraabi oo noo soo gudbi halkaa asagoo jooga ayuu waxay isbaranayaan haweeney oo markaas Canadiana oo aad u da'yar oo soo jiidatay you see honey trap bay dhahaan honey trap waxa weeye oo macaan jecel rag godkaas ku daadanaya dabadeedna birta jiirka ku dhigto kale ayaa kula boodaysa markaas waagu ku baryaa haddaba gabadhaas ayuu baranayaa wuxuusan la ogeyn gabadhaanu in uu qabo sargaal sare oo ka tirsan militariga dalka Canada isagoo war kama hayo hase yeeshee ninkaas sargaalka Canada ka tirsan ayaa habba waxaa loo diraa meelo kala duwan iyo safarro ayuu galaa waqti bay marka waxay isku helaan asaga iyo inantan waa ninka KGB-da ka tirsan ee sirdoonka markaas Sovietka ahaa gabadhii ayay isku fogaanayaan saaxiibbaa la noqonayaa wax walba ayaa dhex maraya dabadeedna waxay gaarsiinaysaa heer uu markaas relationshipkooda ama xiriirkooda wuxuu soo gaarayaa heer uu bislaaday oo markaas meeshii u sarreysay uu marayo dabadeedna wuxuu ogaga warramayaa qofka uu yahay ee dhabta ah inuu ka tirsan yahay sirdoonka KGB-da sargaal sarena uu yahay fursad dahaba ayay ka dhex arkaysaa waa halkan meesha sheekadu ay weji uusan filanaynin ay ka yeelanayso habeenada ka mid ah iyagoo ciyaar dhammaystay oo degan ayay leedahay ra'yi u soo jeedinaysaa ra'yigaas ayuu madaxa ka ruxayaa waxayna ku odhanaysaa fikir ayaan ku hayaa fikirkaas waxa uu yahay meesha aad Soviet Unionka oga jaajuusaysid Canada oo dalkaygii ah ka waran haddii aad markaas Canada agency ah aad u noqotid oo sirta KGB-du ay kusoo dhiibto aad sirdoonka Canada la wadaagtid wow you didn't see this one coming ninkii waxa uu og yahay reerkiisa ehelkiisa asaga in laga takhalusayo arrintaanu ma sahlana gabadha ninkan waa jecel yahay nolosha Canada ka fiicantii Moscow bashii barwaaqo ku jira baashaal buu ku jira waa nin dhalinyaro ah dabadeedna waxantii inuu miisaamo ayaa ku dhalanaysa way ku soo noqonaysaa annaga nala shaqaynaysaa dalkeena u shaqaynaysaa halkan baa lagu dejinayaa nolol cusub baa gelaysaa anigana waa ixaranaysaa askarigan odayga ah oo iga weyn oo daalana cawdaan u jarana waa aniga adiga ka waran saas u yiraahdo adiga Soomaaliga daawanaya gabar yar oo Soomaali oo qurux badan gabar yar oo Ingiriis Canadian qurux badan haday sidaa ku tiraahdo xaaladdu ma sahlan oo maleynaya waa hagaag sidaas markay ku tiraahdo muddo ayuu qaadanaya waxa uu miisaamaya his options evaluation uu sameeyo dib isugu noqo fariiso fakar ayaa ku dhalanaya ugu dambeyntii waxay ku qancinaysaa arrintaanu inay tahay sida keliya oo halkaana ku joogi karo ayadana uu ku hanan karo haddii aad jeceshaho jacaylkaagu dhab yahayna ka dhabe khatar waay hada siren baa yeelaya emergency-ga waxba kama qaban karno saaxiib waxa ay ku jira haddaad jeceshahay ka dhabe jacaylkaaga cawdana u jar double agency-na waxaad noqotaa oo ah
sirta KGB da soo qaado anaga noo keen arrintii ayuu ku qancaya ninkii dalkiisa loo soo diray inuu sirta Canada uu keeno ayaa dalkiisii sirtiisii gudbinaya muxuu dhaafsaday gabadhaas iyo noloshaas markaa uu ku jiray hase yeeshee arrintu weji kale oo labadooda midkoodna uusan filaynin ayay yeelanaysaa waxaa jira sargaal hoose oo kuwa darajadooda hoose sida aliflaha laba aliflaha ah oo ka tirsan markaas ciidamada Canada ayaa wuxuu ka warhelayaa ninkani in uu asagu markaas Sovietkii jaajuusayo oo arrintii loo soo diray cagsigeeda uu samaynayo marka ninkan waxaa la yidhaahdaa James la yidhaahdo oo ah asagu Canadianka asaguna waa double agency dalkiisa ayuu u jaajuusaa KGB-da waraf iyo shimbiro war iskuma hayaan KGB uu dhab ku siinayaa waxa uuna leeyahay ninkaad soo dirsateen halkan ayuu joogaa sawirra laga qaadayaa sawirrada KGB-da la wadaagaya waxaana la ogaanayaa ninkaanu inuu sirtii dalkiisii uu fashilayay islaantaa yarna uu ka doortay xaalkuna ma wanaagsana dabadeedna waxaa la eegayaa wixii sir loo dhiibay oo dhan waxaana la arkayaa classified sir fara badan oo xog xasaasi ah oo sir ah aynan loo dhiibinin haddaba aragteen Donald Trump waxaa lagu haystaa classified document ayuu dal gurigiisa u qaatay you cannot have classified document ma haysan kartid mararka qaarkood dadka Soomaalida marka qaar la sheekaysto waxay ku sayaan documentiyo iyo qoraallo sir ah oo ay dad isku dareeyeen oo dadkeena iyo dalkeenaba ka dhan that's another day another story laakiin ninkaanu KGB-dii wuxuu la wadaagayaa inuu ninkaanu sirtii dalkiisa uu fashilay aanan la aamini karinin inkastoo uusan ogeyn siday xaaladdu meesha fog ay ninkaan inaagtaanu isla gaarayn laakiin wuxuu og yahay ninkaanu inuu haweenaydan saaxiib la yahay sir fara badanna u gudbiyo waqti badanna isla qaataan KGB-dii assessment ay samaynayaan waxayna arkayaan risk assessment ay samaynayaan waxayna ogaanayaan markaasba in ninkaan xog fara badan oo muhiim u hayay dabadeedna faraha laga qaadayaa xogta ayaa laga yaraynayaa mararka qaarkoodna xog falsa ayaa loo soo dirayaa oo asagu markaa u malaynayo in weli maaragtay uu xaraggii haysto oo la aaminay uu meeshii kalsoonida u qabo saaxiib haddii aad barnaamijkan haatan daawanaysa oo 7 daqiiqo socday Brit Somali TV oo la socota sheekadan meesha ay ku dambaysay inaad ogaato ayaan la jeceshahay and believe me mar dhow sheekadu cirka intay nala aado way hoo bariiskana oranaysaa dhulka markii sinta iyo madaxuuna jabana dabadeedna cirka ayay noo celinaysaa waa sheeko cajaa'ib ah waan soo koobinaa laakiin koos waxaan rabaa inaanan macluumaad badan siin oo idinku maskaxdiin intaa ka fikirtaan bahasha isku dhufataan ra'yigiina hoos aa noogu soo qortaan weliga diirkeed baanu nahay waayahay sidoo kale waxaad yeeli kartaa inaad subscribe channelkan saartid baanu kaa codsananaa gambareedkana furtisaysan waxba kuu dhaafin haddaba ninkii asagoo sidiisii iyo baashaalkiisa ku jira sanad iyo bar baa loo seeta dheerinayaa kaadi badani oo loo google badiyaa Soomaali baa horey u tiri xigmad badan ah ninkii sanad iyo bar kadib marba documenti falsa sida loogu soo dhiibayo asagoo moodaya inuu meel fiican wax marayaan ayaa leeyahay waxaanu kaa rabnaa inaad soo carootid oo aad timaadid gudaha arrintaa marka loo yeero sirdoonkii Canada ayaa waagu ku baryaya waxayna ogaanayaan waagaasna jirtay cid allaale iyo ciddii looga shakiyo inay sirta dalkooda ay gudbisay korka yarkaabaa la horrigi jiray marka they knew this guy he's not going to be alive in la dilayo uusan noolaanaynin ayay ogaayeen si kastaba ha ahaatee hadduusan isagu noqonin reerkiisii in la baabiinayo ayuu ogyahay wuxuu yidhi intii dadkayga la dili lahaa I have to go back he goes back ogow ninkan askariga oo Canadianka oo sirta ninkan fashilay weli lama oga marka uu meeshii ku noqdo dib dambe maqal iyo muuqaal waa looga waayayaa meeluu ka dhacay Canadiankuna waxay aaminayaan ninka odayga in la dilay arrintiina halka ay ku dhamaatay muddo kadib ayaa waxaa sirdoonka Canada ayaa waxay ogaanayaan in James Murray ninka la yiraahdo oo sargaalka ahaa ka tirsan saraakiisha hoose ee Canada in uu markaas sirtii isagu bixiyay baaritaan baa lagu samaynayaa waxaana la ogaanayaa ninkii arrinta ka dambeeyay ala kulli xaal maxkamad baa lasoo istaajinayaa house arrest baa lagu samaynayaa maxbuus guri baa laga dhigayaa muddo dheer meeshaas ayuu ku ahaanayaa maxbuus guri 2 sano iyo bar maxkamaddu ku xukumaysaa maxbuus guri dabadeedna TV ayaa loogaga yeerayaa maalmaha ka mid ah waraysi baa laga yeeranayaa wuxuuna bixinayaa wax la yiraahdo
no comment interview oo ah maxay su-aashii lagu weydiiyeyba waxaad leedahay no comment ninkaa maadaa jaajusay no comment ninkaa ma ka warqabtaa no comment ninkaa ma istaqaanin no comment marka he does not want to incriminate himself على كل حال waxaa dhacaysa arrin lama filaan ah ayaa dhacaysa haddaan ku yiri shicirkeena la aadaysa wadnaha bariiskeena oranaysa waxaa dhacaysa maalin maalmaha ka mid ah ninkan marka uu dib ugu noqdo dalkiisii muddo dheer la waayay ayaa waxaa telefoon soo diraya 1994kii ayaa waxaa telefoon soo diraya British Embassy ku taala Lithuania waxayna leeyihiin waxaanu haynaa muwaadinkaas ayaanu haynaa hore idinkugu shaqayn jiray oo KGB-da ka tirsanaa ayaanu haynaa Canadian sirdoonkii ayaa yaacaya ninkii baa nool macquul ah waxaan laguma aqoon KGB-da maybe this somebody else dabadeedna telegramka loogu dhiibayaa waxaana la weydiinayaa su'aalo cid ka jawaabi kartaa aysan jirin ilaa 2 qof maahane iyadu maraynaysa 2 qof su'aalaha la weydiinayo waa su'aalo xasaasi ah laakiin ninkan iyo qof kale kaliya qofkaas kale waa haweeneydii ninka askariga qaba ninkan saaxiibka la ahayd labadooda kaliya maxaa yeelay macluumaadka dhan bay siisay dabadeedna waxaa la weydiiyey xilligu markuu saas iyo saas iyo saas ahaa oo halkaas aad joogteen maxaa dhacay jawaabtii saxda ahayd ee loo baahnayd buu bixiyey haweeneydiina ayagay la joogtaa oo xiriir ka dhaxayn karaa ma jiro waa la ogyahay waxay la joogtaa sirdoonkii ayadaa u sheegaysa su-aashaas weydiiya saas iyo saas iyo saas taariikhdu markay ahayd oo halkaas aanu joognay oonu xidigaha maraynay xaalku seebu ahaa saas iyo saas iyo saas bay ahayd waxaa markaan ka sheekaysanay oo hameenkii aan kugu qanciyey inaad sirdoonka Canada ku biirtid maxaad ka xasuusataa 1 iyo 2 iyo 3 run buu sheegaya waa asagii sirdoonkii diyaarad Ingeri soo qaadanayaan and they touched down in Sweden because ogow Lithuania ma aysan aadi karin because naftooda ay uga baqanayaan because meesha Soviyetkii baa ka dhow inaad ogtiin awood fara badan bay meesha ku lahaayeen على كل حال waxaa dhacaysa ninkii ayaa Sweden lagula kulmaya Stockholm meesha la yiraahdo ayaa lagula kulmaya halkaas ayaa shaah iyo champagne iyo waxaan aan afgaranaynin lagu cabiyaa waa la isku marqaamaya dabadeedna Canada ayaa dib loogu soo celinaya waxaa la siinayaa sharci Canadian ah halka ayuu deganaanaya wuxuuna isku dayayaa inuu haweeneydii uu jeclaa oo waxaanu hawlaba marisay inuu raadiyo intaan haweeneyda u gelinin maxay Soviyetkii ninkan u khaarijin waayeen laga isweydiisay Sovietku maxay ninkan u khaarijin waayeen Sovietku waxay ogaadeen ninkan inuu sir fara badan u bixiyay balse haddii asaga la khaarijiyo dad kale oo ay ku daba joogaan oo markaas inay ka didaan arrinta oo sir kale oo ay markaas ay qarinayeen iyo dad ay ku daba joogaan inay fashilmaan so you let this guy go but you save hundreds more sidaa awgeed baa loo soo daayay so Sovietku they were not stupid waxay garanayeen arrintay miisaameen waxaa la yidhi kanaan iska sii dayno waa nooga fiican in 100 kale ay halis naftooda gasho oo hawlaha halis noo wada waayahay waxaa lagu soo celiyey Canada marka uu yimid Toronto meesha la yiraahdo gaar ahaan ayuu yimid dabadeedna sharci baa la siinayaa guri baa la siinayaa police protection baa la siinayaa la waardiyeeyo dabadeedna wuxuu isku dayayaa jacaylkii berigii jabkaan oo dhan u geystay inuu boorka ka jafo jacaylkii berigii inuu boorka ka jafo ayuu isku dayayaa haweeneydii ayuu raadinayaa wuxuusan ogeyn in ay magaceedii bedeshay statekii ka guurtay baasaboorkeedana magacii laga bedelay oo haddii la oran jiray deeqaluula haatan waxaa lahaa maryan ruun marka maryan ruun aad uma garan kartid marka kama raadin kartid phone bookska iyo meelaha dadka laga hela macluumaadkooda kama heli kartid statekii oo dhanna way ka guurtay waxaana lagu wargeliyey in ninkii uu soo noqday xiriir haddii rabta inay la samaysay haddii kalena uu xiriir ku furan yahay meesha sargaalkii ayada qabay uu dhintay oo markaas ay ahayd carmal gurdoon ah hase yeeshee waxay tiri ninkan hawlo fara badan baana dhex maray dantan kalaha waa ka gaaray dalkayga ayaan ku difaacay haatanna waxa weeye xiniba iyo marsano hawlo kale ku jira
hay wareerin haddaba ninkii odayga ahaa ee sargaalka ah waxaa dhacaysa 2009 in uu ku dhintay Toronto Canada ayuu ku dhintay sheekadeenii sirdoonkuna halkaa ayay ku dhamaatay maxaad ka fahantay ama ka baratay sheekadan waxaad ka fahantay sirdoonka caalamku say dumarka u isticmaalaan waxaad sheekadan ka baratay oo kale muhiimadda ay leedahay qofka muwaadinka inuu dantiisa ka hormariyo danta qarankiisa oo ka hormariyo waxaad kaloo ka baratay oo muhiim ah meel walba in loo galayo sirta dadkaaga iyo dalkaaga inaad xifdidid cidda wax walba afka ay kala hayaan annaga weeye xalka ummadda soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka isbarkan ee soomaalida waxay ka imaan karaan oo keliya ilaahay ka sukow soomaalidu waagaanu garanno in aanu aan xal kala nimaadno dhibaatooyinkana haysta marka ay dunida ku ixtiraamaysaa ayaa lagu cizeynayaa lagu sharfayaa laakiin haddaanu doonayno inaan mid walba daba orodid adigu unbaa waqtigu kaa dhammaanaya dadkaaga iyo dalkaaguna halkaa ayay olanayaan cabdixafiin maxamuud jaamac waa lahaa adigaa daawanaya waa brit somali t v waa barnaamijka sirdoonka caalamka intaanu toddobaadka dambe kanoo kala kulmi doono toddobaadkii hore barnaamijkaanu soo dayna hadduu ku dhaafay waa kana halkan ka daawo iyo kuwo kale oo ku xiise gelin doona